بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته daawada ku soo dhowaada barnaamijkeena qisooyinka nolosha qisadan maanta aan ka sheekeynana waa runtii qisooyinka aadka iga cajabiyey ee markaan runtii aan akhrinayo ay laabteedu wax badan dareento qisada waxay ku saabsan tahay gabadh ayaa waxay la soo hadashay xarunta booliska waxay tiri waxaan rabaa ninka booliska ah ee maxamed la iraahdo in aan la hadlo ninkii xarunta fadhiyay baa wuxuu la xiriiray ninkii booliska ahaa wuxuu gabadh noocaas ku rabta inay kula hadasho waayo habiir waan la hadlaya gabadhii buu la hadlay gabadhii baa waxay tiri run ahaantii waxaan rabaa inaan kula kulmo arrin yaroo ii gaarana inaan kaala sheekaystaan rabaa oo nagaado arrintaanan cabasho ka gudbin karo iyo inaanan ka gudbin karayn waayahay buu yidhi waad iman kartaa xafiiskaad igu iman kartaa gabadhii baa ninkii xafiiskii ugu tagtay xafiiskii gabadhii markay ugu tagtay ninkii booliska ahaa ayaa waxay ku tiri runtii waan go-aansaday inaan arrinteeda adiga kuu sheego sababtu waxay tahay beri hore aan kuu imi aniga iyo reerkayagu ayaad runtii si fiican wax noola qabatay marka arrintaasa waxay ku dhalisay inaan arrin ii gaarana aan kaala sheekaysto wuxuu yidhi waa maxay arrinta kuu gaarad rabta maanta inaad wax iga weydiiso waxay tiri soddon sano waan dhaafo oo da-daydu 30 jir way dhaaftay welina maan guursan sababta maad garanaysa wuxuu yidhi waa maya wuxuu yidhi sababtu waxa weeyaan bay tiri nin baa jira aan isku baranay shaqada ninkaasi markaan isku baranay xiriir baan wada sameynay xiriirkii markaan wada sameynay ayaa waxaa dhacay waxa uu iga helay waxyaalo badan oo runtii aniga xaggayga aan ficlan inuu iga ogaado hadday sawiro noqoto hadday videos noqoto aduu muuqaalo aan fiicnayn ayuu xaggayga ka helay ninkaasi markaa hore anagoo dee si caadiya u wada sheekeysanaynay ayaa muuqaalo noocaas xaggayga uu ka helay ninkii markaa wuxuu sameeyey muuqaaladii uu iga helay aniga ku saabsanaa ee sirtay ahaa ayaa waxa uu bilaabay inuu iigu hanjabo inuu faafinayo haddii waxa uu raba aan samayn waayo taasi waxay ku keentay ninkaasi inaan u xidhxidhnaado beri dhowto waxaan siri guursabay tiri nin baanu heshiinay ninkii markaanu heshiinay ayaan isagii u tegay waxaan ku war nin baanu heshiinay waan guursanayaa wixii hore aynu ku wada soconnay kuma jiro sawirad wixii aad iga haysana walaal baabi wuxuu igu jawaabay ma guursan kartid ninna ma guursan kartid haddaad guursatana waan ku fadiixadaynayaa wixii aan muuqaaleyn ka hayayna waan soo dhigayaa buu yidhi qofkaana aada guursanaysana waan u dirayaa waxaa tiri arrintaasi waxay ku keentay inaanan guursan ilaa hadda wanigaa taagan oo maan guursan ninkaasaan u xidhxidhanahay naftaydii iyo dadnimadkaygii iyo waxaygii oo dhanba ninkaasaa haysta maxaad igala qaban kartaa ninkii booliska wuxuu yidhi wax badan baan kala qaban karaa laakiinse waxay u baahan tahay qaab officiala inaan cabashada kaaga qoro oo kadibna aan baadhista bilaabo waxay tiri markaa iyadoo runtii yara baqbaqanaysa waxay tiri wallaahi waxaan ka baqanayaa in haddii aad baadhista bilowdo hawsha aad gasho sidan hadda anay si ka xuna ay sheekadu noqoto laakiinse waa kugu soo warcelinaya way ka tagtay maalintii labaad bay soo noqotay maalintii labaadba waxay tiri waxaan go-aansaday hawshii inaad gasho maadaama aad nin boolis oo wanaagsan aad tahay hawshii gal wuxuu yidhi hawshii baan galay buu yidhi waxaan ka qaaday ninka telefoonkiisii guriguu degan yahay macluumaadkii ninka ku saabsanaa oo dhan ayaan gabadhii ka qortay kadib waxaan sameeyey buu yidhi ninkii waxaan qoray markaa warqadii muxuu ahaye samanka ahayd loogu yeedhayay si ninkaasu u imaado xarunta booliska wax looga weydiiyo gabadhaas waxay sheegtay ninkii markii loo diray runtii yeedhitaankii u aqbali waaye mabuu imanba bale dhowr cisho kadibba gabadhii baa soo hadashay waxay tiri ninkii hooyaday buu la soo hadlay waanu ifadiixadeeyo wuxuu iga hayayna hooyadaa wuu u sheegay kadib waxaan ku yidhi ninkii booliska ahaa labadiina waa ii kaalaya iyadii hooyadooda socota ayaa xaruntii booliska yimi waan la fadhiistay buu yidhi islaantii baan dejiyey waxaan u sheegay inantan ina wanaagsan tahay oo aniga ay soo biday inaan wax la qabto go-aan fiican ay qaadatay marka inaanay islaantu ka warwarin aanay inantana u cadhoonin aduu islaantii way fahantay arrintii waana ila qaadatay waxaana tiri ninkaa in lasoo qabtan rabaa oo sharciga la mariyo waxay noqotay markaa wuxuu yidhi qofkii intii hore maan qaban karayn buu yidhi
sababtoo ah waxa weeyaan dee sharciga marka la eego wax qofka booliska qofka wuxuu qaban karaa isagoo dembiga faraha kula jira haddii kale waa inuu maxkamadda warqad qabasho uga soo qaataa waxay noqotay markaa maadaama ninkii noo iman waayey warqad qabasho ah inaan dalbado oon maxkamadda ka dalbado warqadii baan helay buu yidhi warqadii baan ninkii kusoo qabtay ninkii markii aanu runtii aanu keenay maxaa jeelkii aanu keenay xabsigii ninkii markii aanu keenay ayaan waraystay buu yidhi ninkii waa dafiray wax alla wixii gabadhaasi ku soo eedaysay uu dafiray wuxuu yidhi gabadhaa maba aqaanba gabadhaad sheegayso maba aqaanba aduu halkiibaa waxay noqotay cadaymihii inay adkaadaan wuxuu yidhi waxaan tegey baabuurkiisii uu soo kaxaysay baan u tegey baabuurkii baan fatashay waxaan isleeyahay markaa waa intaasood baabuurka ka heshaa telefoona iyo kaadhadh iyo waxaan dokumentigii cadayntii waanaad heshaa wuxuu yidhi telefoonadii aan ka helay baabuurka may ahayn iyo kaadhadhkiiba kuwan uu gabadha ka soo qaraacaya may ahayn wuxuu yidhi ninkan khatar buu ahaa buu yidhi wuxuu sameeyey gabadha telefoonkan uu kala soo hadli jiray isagu maba laha isaguna magaciisa kumaba qorna telefoonka magaciisa waxa ku qoran nin shaqaalaha oo dalkaba ka dhoofo ka tegayba markaa ninkani already telefoonkan uu gabadha ugu hanjabayo ee sawiradii balaayada uu ku hayo dokumentiga uu ku hayo maaha telefoon isagu leeyahay qof tegay baa iskale isaga telefoonadu haysto waan baadhayo wax dhiba ma laha magaciisa ku qoran wax dembiyo galana kuma jiro markaan baadhitaankii sameeyey waxay noqotay markaa arrin bilaa cadayna halkaa marka ay marayso oo sheekadii yara adkaatayoo dee ninkiina uu xidhan yahay ayaa waxay noqotay 40 saacadood baa dhammaaday haddii intaasi dhammaato sharci wuxuu dhigayaa qofkii waa in maxkamadda dib loogu celiyaa oo loo xalaaleeya xadhigga wuxuu yidhi dib baan xadhiggii baan dalbaday in loo xalaaleeyo 5 cishaana loogu daray 5 cisho markiina loogu daray ayaa waxaan baaritaankii haddana ahaan sii waday buu yidhi waxay noqotay bal inaan cadayme ka heli karo ninkan gurigu deganaa inaan tago gurigii baan u soo qaatay warqad runtii baadhisa gurigii baan ka dul degay guriga markaan waxaas leeyahay waxaad ka heli kartaa telefoono iyo kaadhadhkan uu imika qarinayo ee gabadhan uu ka soo qaraacayay ayaa laga yaabaa inaad hesho ilaa ninka waa nin khataroo waxaan aada uga sii taxadiriya waxba ma yaalaanba wax kasta uu qariye moobil ma yaalo laabtob sawiro ku jiraan ma yaalo wax yaala male halkan waan ku hungoobay buu yidhi arrintu halkaa markay marayso waqtigina uu dhayo 5 cisho kaliya maxkamaddu ii soo ogolaatay inaan ninkan aan sii hayn karo haddaan 5 cisho ka dhammaadaan waa la sii daayaa arrinta halkaa markay marayso wararkaasi hayo ayaa waxaan go'aansaday buu yidhi ninkan muxuu ahaayay kiiska ku jira iyo gabadha laftigeedii inaan isu keeno oo iswaajahaan waana qaab ka mida muxuu ahay qaababka loo sameeyo baaritaanada gabadhii baan u yeedhay waxaan ku yidhi ninkan aad runtii eedda ka sheeganayso kow waa la soo bandhigayaa bandhigaasaad ku cadaynaysa horta inuu isaga yahay marka ninkii baa la keenay rag fara badan oo kalena waa la keenay meeshii oo isaga u eeg iyadii baa markaa ka soo dhex saar gabadhii waxay socotaba ninkii way soo qabatay markay saa u soo saartay ay tiri ninku waa ninkan ninkii markii la soo saaray ayaa waxay noqotay inaan step labaad u gudbo labadooda inaan iswaajahaan oo ay sheekada isku waajahaan idana waa qaab kale wax loo baadho qofka dembiga galay iyo qofka eedaynaya ayaa markaa inta labadooda kaliya la isu keeno ayaa la wada hadla labadoodii baan soo keenay buu yidhi boolisku markaa way dhegeysanayaan waxay rabaan inay ogaadaan bal midka wax ka yaran si noqdaanay khalkhal hadalkiisu gale wax lagu cadeeyo ama wax lagu qabto inay eegaan ninkii gabadhii baan soo keenay gabadhii baa ninkii arrinta ku qarxisay isna uu hadlay ninku waa nin kibriyaaniya wuxuu soo istaagay naanu kuma baaqaanba xagaad igu baratay weligay kumaan arag naamaano adigoo kale aanu la sheekaysan karaaba isla welida ninkaa ku jirta iyo siduu yahay adaa tacajubaya arrintii markay dhammaatay gabadhii ay soo baxday iyadoo aadan hiya jabsan ayaa kura dhimbala insha allah waynu heli doonaa xaqiiqada dhabtaa waynu heli doonaa aduu waxay noqotay halkaa hawsha markaad marayso ee maalintii afaraad la galay maalinta shanaad waa maalinta iigu dambaysa ninkaasi waa la sii daynaya maalinta afaraad baan maraya waan warursanahay buu yidhi anoo boorisa sababtoo gabadhan ninkan waan garanayaa buu yidhi wejigiisa markaan soo eego inuu dembiile yahay inuu khaa'in yahay way ii muuqataa buu yidhi laakiinse waa inaan helaa caddayn la taaban karo oon maxkamadda ku horkeeyo sababtoo qaanuunka wuxuu dhigayaa hadduu kiisku criminal yahay waa in la caddeeyaa beyond reasonable doubt bay yidhahdaan waa in la caddeeyaa shaki la'aan 95% kiiska waa inuu caddaada haddii kale maxkamadda ma horgeyn kartid
caddayntii baan raadinayaa buu yidhi maalinta afraad anoo ku jira buu yidhi oo aada u niya jabsan buu yidhi ayaa waxaa meesha yimiba nin inan wata ninkiiba markuu saa usoo galayba waxuu yidhi niyow inantanaan wadaa buu yidhi ninka halkan ku xidhan ee fahmi la iraahdo ayaa inantaydan ku sameeyey hadidaad isagoo ugu hadidaya muuqaalo uu ku hayo inuu ku fadeexadaynayo intaa ninkaasi markuu sheegay waan farxay buu yidhi sababtoo waxaana sidii caddaymabad gabadhan ka helaysa iyada gabadhan cusube iyaduna dembiga uu ka galay ninkani caddaymay bay wadataaba gabadhii baan eegay telefoonkii ka wada xidhiiri jireen ilaa telefoonkuba isna waa telefoon kale waa nambar kale oo isna runtii oo qof kale leeyahay oo kiis magaciisa baan ku qornay wuxuu yidhi sidiiba broseski dib aanu mari oo telefoonkii baan raadiyey baabuurkiisiiba dib uga baadhay gurigiibaa laga baadhay wala waaya isla maalinta afraad buu yidhi haddana gabar kalaa meesha timi booliska oo ninka ku dacweynaysaa inuu iyadana uu muuqaalo ka qaatay uu ku fadeexadaynayo arintu halkaa markay marayso ayaa iyadana aan ku farxa markay timi waxaas lahaa waxay kuu faa'iideynaysaa baadhista wax lagaba caddaymay inay kuu keento waan baadhayoo ilaa iyadana telefoono kale ayaabuu isticmaalaya hawshu markaa marayso oo saddexdoodaba cadday la-aan aanu hayo ayaa maalintii shanaad la gaadhay oo maalintii ugu dambeysay maalintii shanaad markay duhurkii marayso ayaa meesha waxaa igu yimi inantii muxuu ahaay ugu horeysay ee ninku dembiga uu ka galay iyo hooyadeeda wada socda waan la fadhiistay waxay igu yidhahdeen wax fiican baad noo qabatay waa dadaashay intaad qaban kartay waad qabatay laakiinse haddii dee caddayman la waaye adigoo ku mahadnaqayna islaantiiba waxay tiri ilaahayow waxaan ku weydiistay ninka qalbigiisa gob sida inantayda qalbigeeda u gubay kana dhig mid tamaniya inuu dhinto dhimashadana u diid habaarkaasi gabadh ninkaa ku tiri ninkii inanteeda dhibay habaarkaasi ku tiri ninka booliska wuxuu yidhi intaa markay leedahay aad baan u gubanayaa buu yidhi aduu waan iska soo baxay buu yidhi casarkii baa la gaadhay waktigii la sii daynayay ninka sababto waa in la sii daaya waktigii lahayn kari lahaa ee sharcigu ogolaa wuu gaadhay waxaan usoo qaaday buu yidhi alaabtiisii uu meesha markuu xabsiga la geliyay laga qaaday ayaan usoo qaaday alaabtii markaan usoo qaaday buu yidhi ayaa waxaa dhacday buu yidhi warqad baan ugu dul qoray meesha warqad yar baan u geliyey warqaddii intaan u geliyey anuu aan qoray oo hadal yar aan ku qoray ayaan u dhiibay alaabtiisii markuu qaatay uu sii baxayo warqadiibuu saa eegay uu akhriyey intuu saa iisoo eegay buu yidhi yara si kibraaniya ayuu warqaddii saa iskugu duuduubay ayuu iska tuuray buu yidhi wuu iska tegay buu yidhi kiiskii bartii baa lagu xidhay buu yidhi muddo yar kadib buu yidhi muddo kadib dhowr sano kadib buu yidhi ayaa telefoon la isoo diray yaa telefoon isoo diraya xaruntii booliska markaan waan ka wareegay oo meel kalean u wareegay buu yidhi markii telefoonkii la isoo diray baan qabtay waxaa lagu yidhi hebelow in xaruntii booliska joogi jirtay waxaa kuu taala kartoon sanduuq baa ku yaala ee soo doono waayaha baan yidhi waan tegay buu yidhi sanduuqii kartoonkii buuxay baan soo qaaday waa kartoon alabi ku jirto waan furay maxaa ku jira waxaa ku jira magaca ku qoran baan eeg ilaa magacu waan markiiba xasuustayoo waa ninkii dembiga hablaha ka geli jiray ee fadeexadayn jiray ayaa magaciisu ku qoraya waan eegayo waxaa ku jira kartoonka laabtobyo moobilo kaadhadh waxaasoo dhan ba ka buuxa wax allo waxaa caddayna ee aan u baahna inaan ninkaa maxkamad ku keeno ayaa kartoonka ku jira waan yaabay buu yidhi war ninkii maxaa soo kii dembiga dafiri jiray soo kan caddaymihii soo diray intaa markaan iri baa ninkii booliska ila jooga xaruntaan ku yidhi warniyo ninkaa kiiskiisa dib u baadha feelkiisii soo saara kiiskii haddaynu ku qaadina caddaymihii baa la helay nin boolisa markiiba ordayoo bilaaba inuu feelkiisii baadho anigoo kartoonkii hayay buu yidhi ayaan kartoonkii eegay kartoonkii markaan eegay warqad baaban arkayba warqaddii baan furay waxaa ku qoranba ninkii fatxi la oran jiray kiisaska badan hablaha ka galaaba ku qoran muxuu leeyahay waxaan kuu sheegayaa maxamedow waxaan kuu sheegayaa maanta manaan dhiman mana nooli waxaa igu dhacay xanuun ugu xumaa adduunkaa igu dhacay xanuun barar oo jidhkayga galay ayaa igu dhacay mana nooli manaan dhiman waxaan kaa dalbanayaa dhammaan dadkan dembiga ka galay waa kan aan kuu soo qoray caddaymahoodii keliya maaha 3 hablood hablo badan oo uu ka galayna uu soo qoray wuxuu waxaan kaa dalbanayaa dadka aan dembiga ka galay inaad reerahooda u tagto inaad iyaga u tagto ood ii weydiiso inay cafiyaan hadalkiisa maxaa ugu dambeeya
hadalkiisa qoraal yar hadal baa ugu dambeeya. hadalku kusoo khatibay hadalkiisa muxuu yahaynaa maalintuu sii baxayay warqadii yareedee aan wax ugu qoray hadalkii aan ugu qoray buu kusoo khatimay hadalkiisa oo maalinta maxaan ugu qoray waxaan ugu qoray ina aladiina fatanuu almu'miniina waalmu'minaat huma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannam walahum cadaabu alxariq. intaasuu kusoo khatimay isaguna hadalkiisii waa warqadii maalinta uu jeexjeexay ayuu kusoo xidhay hadalkiisii. aad baan murgooday buu yiri. isla markiiba waxaan bilaabo yiri inaan bal feelkiisii baadhno. feelkiisii markaan baadhna isleena bal kiiskiisii had eegtaan warqad kalean feelkii ka helay. maxaa warqadda kale ku qoran hebel 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 waxa uu dhintay taariikhda noocaasa. ilaa ninkaniba wuxuu dhintay markuu feelkan ii soo diray 3 cisho kadib uu dhintay. sanduuqan uu cadaymaha ku sheegay markuu ii soo diray 3 cisho kadib ayuu ninkan dhintay. sidii bay kiiska aan ku xidhnay arintana ku dhamaatay. dawada qisadan waxay ku soo dhamaanaysaa waxaad ogaataa haddii aad runtii garsoorka iyo systemka iyo xerolaalin iyo xisaabtan adduunka haddii aad ka baxsato xisaab kalena way jirtaa oo aakhiro ah. taa horta waa inaad cadaaladda ilaahay aad ku tala gashaa. mid kale meesha talaa waxa weeyaan qof kasta oo dumara oo ay isku dayaan dhalinyarta ama raggu inay u hanjabaan fadaxad ugu hanjabaan xalka ugu muhiimsan waxa weeye qofka kuugu dhow inaad u sheegto. ha qarin. haddaad qariso qofkaasi weligaa uu ku haysanaya addoon baad u noqonaysaa. ha qarin. sheeg cidda kuugu dhow u sheeg si aad uga badbaado. daawadeyntaasaan kusoo koobaynaa. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu.